Barasaafka magaalada Addis Ababa Adenech Abeebe ayaa sheegtay in kooxda TPLF aysan cidna ka hortaagnayn inay noqdaan dal madax bannaan loona ogol yahay inay gooni u goosad ku dhawaaqaan. Dhinaca kale TPLF ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay arrintaasi iyada oo gaashaanka u daruurtay hadalka Adenech Abeebe. Hadalkeeda ayay ku bilowday Tigreegu haddii ay rabaan inay dal noqdaan yaa ka hortaagan. maayarka magaalada Addis Ababa Adenech Abeebe oo arrimaha Tigreega ka hadashay ayaa sheegtay in Tigreegu go'i karaan haddii ay u baahdaan. Waxayna hadalkeeda ku tidhi Tigreegu inuu dal noqdo uma baahna in Itoobiya la burburiyo haddii ay doonayaan sharciga ha maraan oo shacabkooda aftiha ka qaadaan dastuurka dalkana ha u adeegsadaan qodobkii ay horay ugu darsadeen. Shalay markay ka baxayeen xisbiga Burwaaqo cidna ooma ooyin loomana baahanin iyagana iskooda banaanka u istaagay balse maanta wax looga baahan yahay ma jirto aan ka ahayn in ay qodobka 39aad ee dastuurka ay isticmaalaan ayna noqdaan dal madax bannaan. Dhinaca kale xoogagga TPLF ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyay hadalka Adenech Abeebe. Afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda oo arrinkaasi ka hadlay ayaa yidhi madax bannaanidii dalka iyo darbigii isku hayay Itoobiya ayaa laga tanaasulay. Abiy Ahmed waxa uu qaatay shaqo wanaagsan oo ah sidii Itoobiya loo kala diri lahaa. Haddii ay jirto fursad yar oo lagu baajin karo burburka Itoobiya oo aan laga soo kaban karin waa in Abiy sida ugu dhaqsiyaha badan uu kursiga ku baneeyo haddii kale ma jirto fursad bannaan. Hadalka ka soo yeedhay Adenech Abeebe waxaan u arkaa mid wataac iyo walaayow iyo cabsi ku abuuray xoogagga uu hogaaminaya Abiy Ahmed oo haysanin fursado badan oo ay ku sii difaacdaan kuraasta. Waa sida uu sheegay afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda. Dhinaca kale Abiy Ahmed ayaa soo dhigay qoraal yar oo u muuqdo jawaab ku socoto Getachew Reda hadalka ka soo yeedhay isaga oo yiri mid kasta oo inaga mid ah waxa saaran waajib ah in dalka la wada dhiso wax walbo Itoobiya lagu badbaadin karana xaaladan cakiran waa wax inoo wada yaallo. Hadalkan ayaa u muuqdo jawaab dhagaxa oo ku socoto xoogagga TPLF iyo afhayeenkooda Getachew Reda. Dunida ayaa walaac ka muujinaysa xaaladda jiritaan iyo mustaqbal ee Itoobiya. Xoogagga midoobay ee TPLF iyo OLA ayaa ku midaysan in Itoobiya laba mid ay noqoto confederation wadan kala madax bannaan ama wadan lagu kala tagay oo qolo walba ay xukunto deegaankeeda. Mustaqbalka Itoobiya ayaan la saadaalin karin xilligan xaaliga ah maadaama dagaalo ay ka socdaan muddo hal sano ah. Sanadkaana ay ka dhaceen dhibaatooyin aad u fara badan iyo xasuuqyo kala gedisan oo ay geysteen dhinacyada isku hayo xukunka Itoobiya. Waa Abiy Ahmed iyo kooxda TPLF oo hagardaamooyin u geysatay shucuubaha Itoobiya muddo 30 sano ah oo ay xukumaysay xukunka dalka Itoobiya una gudubtay xuduudaha iyo dalalka dariska la ah Itoobiya.